ka furan qaar baa hadhi doona oo codsiga la keeni doona oo wixii jira ee laga doonayo labada xildhibaan markaynu soo saaro ka hadhi mayne. Maxamed Mataan Gabalaax, Sahan TV, Burco. مشرحين عبد السلام عبد الجامع بدر كنين هو ترتمي يقوله وكيله قبل كتبدر يا عبد الرحمن أحمد علي وترتمي يقوله الدجان كدق مضبرعه وكوجد جرا هوله ودير كروج دور الشضع هي الحركة كجري كبدل لبات حفيز وكل يلا حافظة كل دون مقرض برعه هو صيغ طلق المرشحين تلي جابر يشود وقوليا حركة شركة حفيزة ضمن هذا المسؤول كتسب حسب وعي ويكشرحين مرشحين تاني ويالي واحد waxay taageerayaasha murashaxiinta ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan doorashada oo ay codkooda ugu hiiliyeen murashaxiinta Cabdi Kaniin oo astaanti socday intuu tahay fure iyo Cabdiraxmaan Axmed Cali oo astaanti socday intuu tahay 106 maanta waxaan sugaynaa halkan inaynu u furo xafiisyada laba Cabdiraxmaan oo sharaxay wakiilada Cabdiraxmaan Axmed Cali oo sharaxay golaha deegaanka ka sharaxay waa xisbiga astaanta waxa weeye miftaax oo saxii lagu tagay golaha wakiilada ay laawina nambarka Cabdiraxmaan waxa weeye 106 marka waxa la doonaya waayo xafiisyada ay fureen koob iyo soddonka qof walba meesha laga codeynayo waa inaad joogtaa laga waayo astaanteenu taageerayaasha loo sheegay astaanteenu waa fure iyo wasiiro sigis laba cabdi lambarooda waa asino nimadeena oo aynu noqono baarashi aynu ka duulay oo aynu sayno مرشحين عبدالرحمن أحمد علي عبد الكنين وتاجرياشو كلها ضي حفيسة يفرين وحي كورن قرشياشو ضوح قبض وهذا ما توقع مع تغير تاجرياشو كل ميسان كله يقدر نكال بيت جاري حفيز وردي ما أنت كالحري ودورك بدونها ريب وعنا وكرا لكريني ودورك ما أنت حرمي نوض الغاطة يا الله يا هاي وحمش الله يدونا قيدنك تقلنا دينا يقولي هدان ما يبقى وحب الله ما يترشنا حافظ على الصوبة كارهان مجهان تقلنا برعبة لكن بكمية فيها ود حمانتا حشيش كيو كدافتها على بصرين غير كيدو قالقا iyo biyaha idinku suuqulka ayada burcay tahay wali biyuhu magaalada badnaa ama sicirkooda idinku yar sareeyo inta bayna wax ka qabtay ilaahay idinkii dalkeena runtii waxaan ku boorinayaa hadday dawlad noqoto iyo hadday dadweyne noqoto waxaynu runtii geedka damalkan hadsanayno waxaan ku tacabka badan ku baxay dhiig leh dhidid leh waxa loo baahan yahay in halkiisu inoo macaanaado oo cadaalad lagu sugo oo sharcigu sarreeyo oo shaqeeyo ayaa loo baahan yahay xafiisyadan maanta furayno maaha mid ololaha keliya waxaa doonaya xafiisyo joogto ah oo runtii laga shaqeeyo oo waxaan ku wixii dhib ay dadka ka soo jeeda gobolkani ay qabaan ay loo imaadaan insha Allah waxaan leeyahay xafiisooyinkaas adeega bulshada ka shaqeyn doona waxay noqonayaan insha Allah qaar wixii cabashada ay la imaadaan annaguna dadkan wakiishay afkoodana ku hadalno oo toos xukuumadda kula xisaabtano asagoo qof walba uu xaq ku leeyahay dastuuriya dalkan uu muwaadinka ka yahay inuu xaqiisa sidoo helo annaguna aan runtii